أكوانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal halkaad naga daawanaysaan waa TV-ga dalsan. halkana maanta waxaa noogu diyaara xaflad lagu maamuusayo ardaydii ku guulaysatay tartankii sanadlaha ee qur-aanka ay soo qaban qaabisay TV-ga dalsan oona gacanta ka geysatay xawilaada ama bangiga Amaano. waxaan leenahay inta ka qayb gashay ardaydii iyo macallimiintii maamulkii TV-ga dhammaan meesha fadhiya ee ku soo dhawaada. waxaan insha Allah taala aan ku bilaaban doonaa barnaamijkeena oo maanta ku abaalmarinayno gabdhihii ku guuleystay tartankaas oo 12 gabdhood ka kooban abaalmarintooda aayado quraan ku furfuro doonaa. waxaan ku soo dhaweynayaa Xafsa Cabdullaahi Maxamed oo aayad quraan noogu furfuri doonta. Xafsa soo dhaw. Xafsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك. جزاه الله خيرا. إن شاء الله تعالى ما دام لجوء مال عرفة مال بركيسان بدكنا قال من بقى تهاي إن شاء الله وفودينا برنامجك وحنسينا كلمتك وكمان جدي سوق حكم ككاهم بقرصورك وربحنا قسم دونا إن شاء الله تعالى كدبنا وحنوسي قد بدنا غاسبها يو صدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay musaabaqadii qur-aanka kariimka in maanta aan u joogno xafladeeda iyo abaalgudkeeda insha allahu tacaala. gabdhahan oo maasha allah aad iyo aad u dadaalay oo tartan la yaab leh soo galay ayaa maanta insha allahu tacaala waxaan siin doonaa jawaa'is. tartankan qur-aanka kariimka waxaa ka qayb galay 60 arday. 60kaasi arday markii tartanku uu dhammaaday waxaan isku soo reebnay 15 arday. qoladii ku tartamay qur-aanka oo dhan 30ka soo reebnay 5. kuwii ku tartamay 20kana 5 aan ka soo reebnay. kuwii ku tartamay 10kana 5 aan ka soo reebnay. kuwaas waxaan u sameynay tartan labaad. tartankii labaad aan sameynay dadkii ku tartamayay 30ka waa kala har waayay. 4 qof waxay noqdeen isku buundo. hal gabar aan ka dhignay buundo labaad aan ka dhignay. kuwii ku tartamayay 20ka waxaan soo reebnay 3 qof. kuwii ku tartamayay 10kana waxaan soo reebnay 3 qof aan soo reebnay. waxaa ku tartamay ugu dambayn qur-aanka oo dhan 5 gabdhood: Sumaya Cabdirashiid Caafi, Maryam Muxamed Cuthmaan, Umulkhayr Xusein Cabdullaahi, Hidaaya Cali Maxmuud, Maryam Cabdirasaaq Mu'min. tartan wuxuu ahay aad iyo aad u kulul oo gabdhaha mar la isku celiyey mar kale waa la yaab. waxaa la yidhi hala daayaa la yidhi waxa laga dhigo 1 darajo sa loo qaatay. markaan qaybtaas 4 gabdhood isu kaalin waa. hal gabar waxay ku jirtaa kaalinta labaad. 20ka dadkii ku tartamay 3 aan soo reebnay: Xafsa Muxamed Cuthmaan, Salma Xasan Absuge iyo Naciima Shariif Mucallim. kuwii ku tartamay 10ka waxaan soo reebnay 3 gabdhood oo kale ah: Xafsa Cabdiraxmaan Muxamed, Umulkhayr Cabdullaahi Cabdi
iyo maryan xasan salaad tartankaasi maasha allah gabdhihii faraha badnaayay soo galay tartankaas waxaan dhihi karnaa dhammaantoodii aad u ficnaayeen laakiin markii tartan la galo haddana waxaa la rabaa si loo abaalgud loo siiyo waa in dad la soo reebaa marwar waxaa laga yaabaa dadka in lagu kala qaado shaqal mise shaki mid waa shaki mid ma shakin laakiin dadkii qayb qaatay dad badan oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa jiray aniga warkayga intaas ayaan kusoo gabagabaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayr إن شاء الله تعالى وجزاهم الله خيرا جدي ومهتسين سيدنا نوصل كذا وركا كلمة حتى حسيننا على سمها تي في يا راديوها دلسن حسن علي بيسي وأسنا بري أهنجري أرداد كتر تنتقرانك هذا هو معموله تي في وحلنا حسن كسر معموس كأرداد اللي هنا بيا طبعا. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن نحفظ مرة شعالي شيخيga iyo culimada soo gabagabaysay laakiin waxaan rabaa doorkii Dalsan TV ugu talagashay inay ardayda ku tartansiiso quraanka kariimka runtii waxay ahayd in arday badan gaar ahaan waxaan sanadkan u doornay gabdhaha waxay ahayd in gabdhaha iyo sida ay quraanka u xifdiyaan in maaragtay dad badan ogeena jiro in maaragtay banaanka la soo dhigo tartanka siday gabdhaha u geli karaan qaarkood inay wiilashka fiican yihiin runtii waana muujiseen 6 gabdhood in maaragtay guddiga xakamka uu noo sheegay in 4 gabdhood la kala saari waayey waxay muujinaysaa sida gabdhaha u adag yihiin runtii dhinaca xifdiga qur-aanka kariimka marka waxaan u mahad celinaa inta ka qayb gashay dadaashay iyo kulli runtii wax weyn lisma dhaarayn waa la wada tartamay aad la isugu dhawaa kuwa guuleystay iyo maaragtay kuwa kalaba kulligood waa guuleystayaal tartana wax ka aqaana runtii sida Sheekh Cali sheegay marka sanadka dambe aynu rajaynaynaa insha Allah inay guuleystaan kuwa maaragtay kaalimaha kala aaday marka runtii dhiirigelin ugu talagalnay in gabdhaha lagu dhiirigeliyo xaafidiinta ah quraanka runtii gabdhaha aad u daayiriin waliba runtii sanadaha iyo sanooyinka la qulay xataa waxa muddaa runtii in adduunyada caadiga laga helaynin gabadh 12 sano jirto xaafidad ah quraanka taqaan oo dhameysay oo tartamaysa waliba marka waalidiintii ku dadaashay macallimiintii ku dadaalay khayr Allah siiyo aad u maasiyihiin dalsan ahaan waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in tartamaynta ka ballaaran marna intaan ka xoogan inaan inaga culimada ka wada shaqeyno waa tijaabina sanadkan laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha kale aad aan ognahay gabdhaha iyo awoodooda markaan marka waxaan rajaynayaa in tartanta ka ballaaran rabadaha ka dambe aan isugu imaano waa mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى نوعنا هذا علمنا أقاسمها تي في دلسن سيدوك اللي حنوم هذا علمنا بنجي أمانه كالمتا أول مريمتا إيه أغاول كلها وحنا لنا هاي واحد بحثتين بدل كيس الله هذا السيو واحد بدن ولا دي رجلية بدن واحد دي رجلية وقران كخير بدن أم بكاجل بدن مجران قران كان هرنا مقدمة فرتان كان له شيء فدايشي سي فايديس إن شاء الله تعالى وحن كلمة حكتا سننا أستاذ عبد الرحمن وكملها جدك حكمك سو كلمة جوابها ويرادو وحن أقول بدنا قيت الدنب برامج كنا جوائزتنا بحنا هذا البلد نهر سنة سودة وفدرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد هالمر إنها كلا تورتين قال ربنا هو ده هالمر إنها بحق السميسين ربنا هاني كاسا أمره والقلنا أنا نكاس بس ما يجريس هذه اللي ما أكل هذه اللي ما أكل فريس بس نكاس إشارة سينا نكاس إشارة سينا كلمة الموضوع غير الله تبارك وتعالى قيمها بدن أما مكانك قيمها بدن دونك أدم
habeenkii qur-aanka uu soo degay laylatul qadri ah allah tabaaraka watacaala wuxuu ka dhigay habeen barakaysan aada u khayr badan bishii uu qur-aanka soo degay bisha ramadaan allah wuxuu ka dhigay tabaaraka watacaala bil aad iyo aad fadli badan waxaan rabnaa marka cid allaale iyo ciddii كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لنا فإذا وعى القرآن حين لنا اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا فإذا وعى القرآن حين لنا اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لنا marka allah tabaaraka watacaala markii uu sharfay malagii qur-aanka loo soo dhiibay rasuulkiina uu sharfay magaaladii uu ku soo degay uu sharfay habeenkii uu sharfay bishii uu sharfay waxaa marka xaqiiqo ah cid kasta oo qur-aanka baratay oo xifdisana inuu allah sidaasoo kale u sharfayo oo xaqiiqo waay walidaalika ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuna baray qur-aanka qofkii barto oo dadka bara inuu dadka ugu khayr badan yahay qofkii qur-aanka barto oo si fiican qur-aanka u akhriyana inuu malaa'igta allah tabaaraka watacaala uu la nool yahay maca asafarati alkiraami albarara inuu qofkaasi noqonayo ayuu rasuulku ilaahina baray sala allahu alay wasalam qofkii marka xoolihiisa geliyo sida shirkaddan maanta aan u fadhino abaalmarinta ardada abaalmarinayso iyo idaacaddii tv-ga iska kaalmaysay ayaguna waxay noqonayaan dad dhiiri geliyey dadkii qur-aanka bartay dhiirigeliya ayay noqonayaan marka waxaa dhici karta marka inay dadka qur-aanka ku tartamaan markay dadka qur-aanka ay ku tartamaanna waxaa xaqiiqo ah qof kasta inuu intuu masayro oo qur-aanka baranayo oo xifdinayo si uu sanadka dambe tartanka uga qayb qaato dhiirigelintaasi marka waxay ka qayb qaadanaysaa qur-aanka barashadiisa sidaa darteeda marka waxaan leenahay cid kasta oo qur-aanka ilaahay baratana sidaas ilaahay oo meelihii hore u fadilay buu u fadili doonaa cid kastoo qur-aanka dhiirigelisana sidaasuu ilaahay u barakayn doonaa tabaaraka watacaala intaasaan rabay inaan ku soo koobo wajazaakum allahu khayran وصلى الله وسلم على محمد وآله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك استاذ عبد الرحمن waad mahadsan tahay ilahina ajir xasanad allah kaa siiyo kelimadaada koobneed insha allah tacaala waa sida la sheegay qur-aankana qof allaalay qaato iyo ummaddii qaadato way ku saramartaa ummaddii ka tagtana way ku hoosmartaa wa inahu ladikru laka waliqowmika wasuufa tus'aluun marka waa sharaf qofka bartay iyo qoyskiisa aakhirana marka la tago nabiga sal alla alay wasalam wuxuu sheegay xaafid qur-aanka waalidkiis intaaj loo xiraayo jannada dhexdeeda lagu siinayo darajadaas liajli wiilkooda qur-aanka xifdiya oo cunugooda qur-aanka xifdiya daraaddeed marka ilaahay waxaan ka baryaynaa gabdhahan ciddi ku soo dadaashay macallimiinta wax soo bartay waalidiinta soo barbaarisay
ehelka ka qayb qaatay kooda nol iyo kooda dhintayba in ilaahay ajri xasanaad ilaahay ka siiyo ilaahay inuu ka yeelo fi miisaani xasanaatihim ilaahay kuwii taajka waalidka u xiray inuu ilaahay ka dhigo bisababihim iyo kuwii ayagana la dhahay allah ka dhigo iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya ilaahay kuwaasa ka dhigo insha allahu tacala waxaan u gudbi doonaa gabagabadii barnaamijkeena iyo abaalmarintii waxaana yeerinaynaa magacyada waxaan qof walba siinaynaa bakshad yar insha allahu tacala oo ilaahay idankiis hadiyadiisi ay ugu dhex jirto bakshadaasaana aan qof walba insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu hadiyadiisi ka helo waxaana u mahad celinaynaa bangiga amaana iyo maamulka iyo shaqaalaha tv-ga dalsan injineer yaxye iille raggan kale farsamayaqaanada iyo wariyaasha guud ahaan goobta joogo waxaana leenahay ilaahay ajri xasanad allah idin siiya ka qayb qaadashada iyo daadiinta barnaamijka kaalintaad ku lahaydeen jacala allahu fi miisaani xasanaatikum wabaaraka allahu fiikum insha allah waxaan bilaabaynaa yeeritaankii gabdhaha gabadha aan yeerin waxay soo istaagi doontaa halkan waxyar dhinacaasna fursad hasiis t v-ga u jeesato waxaanan u guddoonsiinaynaa abaalmarinteedii insha allahu tacaala labadiina xag istaaga marka insha allah abaalmarintaasaan insha allah dhibaynaa gabdhahana u yeeri doonaa oo sida la sheegayna gabdhaha kaalinta koowaad waxaa isla galay 4 gabdhood kaalinta labaadna waxaa gashay 1 gabar 30 juz inta kalena waxay noqon doonaan haddii ilaah yiraahdo siday u kala horeeyaan xagga magaca ay u kala horeeyaan xagga darajada iyo xagga bakshadaba marka gabadha ugu horeyso oo nu yeerayno markaan siino waa ka hadalnay marka jazaakum allahu khayran waxaan wixii hadalan horaan u dhamaystirnay hadiyadda qofka markuu qaato wayna sugayaa insha allahu tacaala gabadha koowaad u yeerayn waa sumaya cabdirashiid caafi sumaya ahlan bik halkan imaad sumaya waxaad inta usoo jeesaa sumaya hadiyadaadii insha allahu tacaala waa taas waxaanaan rajaynaynaa ilaahay inuu ku barakeeyo waalidkaagii jazaakum allahu khayran waxaan ahayn ma kaafiso wax kaloon dhihi karna male ardayda labaad aan u yeerayno kaalin ma ahan wicitaanka aan wacayna meeshaan waa kaalinta koowaad waxaa sidoo kale ah maryan maxamed cuthmaan maryan halkan imaad maryan waxaan guddoonsiinay hadiyadeedii xagal ciidkeedii waxayna gashay kaalinta koowaad 114 qur-aankayna ku tartantay sidoo kale kaalinta koowaad waxaa sidoo kale galay umulkhayr xuseen cabdulaahi umulkhayr ahlan bik umulkhayr ayagana insha allahu tacaala isla kaalinay wada galeen ayagoo 4 sidoo kale waxaa kaalinta la galay 3 aan hore usoo sheegnay oo 114 tartanka looga adkaan waayey hidaaya cali maxamuud hidaaya ahlan soo dhawow jazaaka allahu khayran waa mahadsantaha hidaaya kaalinta labaad waxaa gashay 114 marka 5taas qof aan ka hadlayno maryan cabdirasaaq muumin waxay gashay kaalinta labaad ay gashay marka la dhahayo wax lagu reebo sabab oo looga reebo 4 kale la helay maahane kama liidan xifdiga laakiin marka la iskala reebayo ay mulaaxada oo qof oo laga helo waxaa la sameynaa si loo kala hormaro qofaa la reebaa saasaa la sameeyaa marka aawi maryama cabdirasaaq maana xagga xifdiga 114 aaday u sareysay aaday mumtaaz u tahay xifdigeedana waa 100% waa mahadsantahay maryama insha allah tacaala allah yubaarik fiikum in ducaa iyo ilaahay ajir idin dhaafsiiye maahane oo wax kale oo idin kaafiya oo ma jiraan laakiin tani waa maxaa la yidhaahdaa waa maamuus iyo dhiirigelin laakiin wax kale ay noqon karto maba jirto qof qur-aanka ilaahay yaqaana ee ku tartamaya wax u abaalgudi karan ilaahay ahayn ma jiraan ilaahay idin abaalgudo insha allah kaalinta xigta waxaa iskale xafsa maxamed cuthmaan 20 juz waxay ka gashay ayada kaalinta koowaad 20 juz wuxuu leeyahay kaalinta koowaad
kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. xabse waxay gashay xabsena inta soo jeesataan rabnaa kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. marka xabse kaalinta koowaad ay gashay. sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay salma xasan absuge. salma xasan absuge ahlan soo dhow salma ustaadkaas u tag bal. salma maqasanaa jirtaa salma ya maqasano ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيك الله قالها كسيه. كان سدحد حاجة لنعيمة شريف معلم. نعيمة شريف معلم. waayahay 10 juz haddii aan nimaado 20 juzna meesha noogu dhamaatay oo saddex kaalin isku xigta kala galeen. haddii aan nimaado 10 juz waxaa kaalinta koowaad galay xabsa cabdiraxmaan maxamed. xabsa soo dhowow waa gabadha qur-aanka noo furfurtay. xabsa cabdiraxmaan maxamed baaraka allahu fiik. xabsa waa gabadhaas yar waxayna ku tartantay 10 juz. soomaaliya waddan oo ilaahay u nicmeeyey laakiin waddan hooga waaya naloo sheegay adduunyada ma jirto 10 jir diinta ilaahay sidaas u xifdin kara iyo fursada ku xifdiya looga ogola lamana heliyo laakiin ilaahay wuu noo nicmeeyey nicmadaas aan kuma hayno. kaalinta labaad waxaa galay umulkhayr cabdulaahi cabdiman umulkhayr cabdulaahi umulkhayr soo dhawaad adiga sii marka umulkhayr soo istaaginta عيال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما خسرت أم الغير؟ ما شاء الله. أي بارك الله فيك. إيفاديسو أنا هتسنت هاي. كانت سد حلو حق علي مريم حسن صلاة. مريم حسن صلاة. ليش كان سويستاكت مريم؟ هاي مريم أنتوا زوجيسو وما هتسنت هاي. بارك الله فيكم. dhammaantiin way guulaysateen ardayda xataa tartanka meeshaan aan soo gaaray way guulaysteen inay qur-aanka ilaahay ku tartamaan. dadaa maanta hees lagu tartansiiyaa, dadaa balooni lagu tartansiiyaa, dadaa malayacni lagu tartansiiyaa, dadaa cunto culud ku tartama, dadaa wax foolxu ku tartama soo maha. marka wuxuu ugu khayr badnaa adduunyada kalaamu rabbi alcaalamiin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إلهي كلام كيسا شرفي إلهي أقرنا شرفتينا كريالا تنوى هديت يكفرحين وحنو مهدلين بنجي أمانة مامولك شغالة تي في دلسن وحنا لنا دمنتي ومهدسنتين دايرياش من الجيران وحنا لنا هاي عودة الصومالية هالودي تقولين قرانك حفظيان الصومالية أمد مركز قربها لتقول حلو يقانا إني تهاي أمد إلهي كو إلهنا قران كده يهين لكن أنا اسمه أجين ومد إلهي قرآن كيسة كل إلهي في التاريخ أو وقتلقى لي إن الدين تان كالم كلها طان هاي كالم تقولين كلام رب العالمين أنا أسدنا مسلمين تا صرفت وحد على الصومالي ساتر الدين كو ترتمل لغبتي سقال ودن صومالي كتلي ذا كلمها كواد لغات سدحات قشي محيط سنة أرنتاس ووضع والبكالمت وقشي أرنتاس محيط سنة أمدان وأمد إلهي الشرفي امتحان كيرا السعودانة وحيث السنة أمد لجعل يهنا إلهي درجة وكوكري يلا يدن بقوذ كدافع معهن إنا نعناقو مصيبة قارة نهاي أما دواتا قارة نهاي إلهي ولا شرفي إلهي شرفتين كورها يلا إلهي ودن كان نبتها كدقو إلهي والدين تاني دن بقوذ الله دافع إلهي كو قرآنك إلهي قبصده كدقو الله نقدقو في يوم القيامة كو إلهي درجة أبسر رئيس إلهي كو قريها الله نقدقو معلمين قرآنك دادك صوبرته إيكو سودة دا شيء قبلها نصو صارت معلماتك قبلها سيدة قارة حلك إساقا soo saaray waa u mahadcelinaynaa waxaan dhiirigelinaynaa gabdhuhu inay ka xifdi badan yihiin wiilasha aaminsannahay bitajruba. marka in waalidiinta gabdhaha dhalayow ilaahay ku mahadiyo gabdhaha ku dadaala ilaahay ku mahadiyo yaan la noqon sida gaalada oo kale oo la yiri idaa bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. nabi sallallahu alayhi wasallam gabdhaha si gaar ah uga dardaarmay maalintaan oo kale yawm Arafa oo dardaaran gaar ah ka bixinay xuquuqdooda iyo sida loo ilaalinayo. marka ilaahay xaqooda uu kor yeelay, ilaahay sharaftooda uu kor mariyay, ilaahay darajadooda uu kor yeelay, korintoodana ajir ka ratabay iyo janno. ilaahay naga dhigo kuwa ka faa'iideysta fursadda dadka ilaahay gabdhaha u hubeeyo
gabdhaha ha lagu dadaalo gabdhaha hala xakameeyo hala ilaaliyo si gaara cadowga ha laga ilaashada iyo doqonada wabaaraka allahu fiikum waxaan gaarnay gabagabadii barnaamijkeeni waxaanan leenahay waad mahadsantihiin tv-ga dalsan waad mahadsantahay bangiga ammaano waad mahadsantihiin guddiga iyo macalimiintii hawshaan soo abaabushay jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا فإذا وعى القرآن حين لانا اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك وانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى